ما أنت ولا الواو مالوين أنا وحن كيمد هرجيسان كيمد وحن هالكا وصوتر ماذين الرير شيخ خلق غيب قلو مناسبة دن سديدية تبن كمي وهذا الشيخ هو مقالة وين وهو مقالة تاريخية وهو مقالة مقع وين كله رنتي سومالي لان مركا وحن شيء على يستين عن إني خلق غيب قلو مناسبة دن سديدية تبن كمي مقالة الشيخ وديجان كيجنا وحن ولا ريال سومالي لان أفري صدن كاسونو مرحلة كل دون بكسر بدوتي مالين بعيد بملك قادية وحويان وحنو لهين الركبة ودنتي ركبة وداوعمي مركي سومال لانجار كاو استاجتينا مدح بنانية يقولون استاج هذا لصون نقطينا ركبة وكعي يهبلو يهوين اسكو حران أو دوديسكي قرن كايا لقلي إنه دنيد وحي نقول درستينا إسكيرين runtii maantana halkaynu marayno waxaynu qabsanay waa la arkaa waxaynu samaysanay jaamacado waxaynu samaysanay madaaro waxaynu samaysanay ciidan xoog leh waxaynu haysanaa runtii khayraad aad u fara badan oo bad iyo bari iyo buurba ah waxaynu nahay dal ilaahay nimceeyey oo dhibaatadii iyo waxyaabihiina gaadhay ilaahay inooga magaratay samata bixiyey walaalayaal waxaynu u baahannahay inaynu ilaashano wanaagga iyo qarannimada reer Somaliland aynu leenahay Somaliland wax ka hooseysa oo runtiina deeqaan ma jirto Somaliland bay nagu filan qarannimadeena ay nagu filan walaalnimadeena ay nagu filan wada jirkeena ay nagu filan waxaynu doonaynaa waxa aynu ku soo tacabnay 4 sano runtii inaynu ilaashano oo aynu haysano farxad iyo wanaagna runtii ku dabaaldegno marka laga hadlayo walaal horumarka ama bulsho horumarkeeda waxa la eegaa laba wax waxa la eegaa jiilasha u soo kacaya iyo waxa la eegaa aqoontooda inagu taynu haysanaa maanta waa taa Somaliland boqolkiiba 70 population-keeda ama dadka ku dhaqani waa dhalinyaro waliba wax bartay taasi waxay ku tusaysaa mustaqbalka Somaliland inuu aad iyo aad u wanaagsan yahay oo jiilal kala duwan ay noo soo kacayaan wadinka arkayay door sida ugu qayb qaateen ardaydu ilaa elementary hadayhiin ilaa jaamacad runtii ardaydu sida u muujiyeen runtii maxay tooleen dareenka oo ay qayb qaateen runtii munaasabada ay 18 May walaalayaal waxaynu u baahannahay waxa aynu qabsanay runtii inaynu ku faraadayno meel adag baa qaranka laga keenay wax wanaagsan baa inoo yaala wax wanaagsan baa runtii inoo qabsoomay waynu halka ka sii adkeynaa waxa weey intaas wuxuu ninkii jiray waa intaas looga sii dhawaado اعترافkiina waa soo dhow yahay insha Allah ta'ala halka yar Somaliland ay dunidu iskugu imanaysaa meel kasta Somaliland la iskugu imanaya halkaas runtii اعترافka iyo waxaynu xaq u lahayn ee 4 sano dunida aynu ka weynay way imanaysaa insha Allah maalin dhow laakiin say inagu mid ah oo wada jir ah ayaynu walaal u baahanay aynu runtii ku qaabilno waxay naga maqan runtii aynu runtii ku wajahno waxaan si gaar ah halkan uga mahad celinayaa ciidamada kala duwan ee qaranka adayin kuwa jiida jooga kuwa amniga sugaya oo runtii ah udub dhaxaadka Somaliland waa tiirkaynu ku taaganahay iyagana waxaan ka codsanayaa inaad shacabka u tubtaan ciidankeena qaranka inaad shacabka u tubtaan bulsho kasta ama qaran kasta wuxuu wax ku yahay ciidankiisa runtii waa ku faanaynaa waa ku dhaadanaynaa waa ku faanaynaa waa ku dhaaday waana ogsoonahay tiirka ay kaga jiraan dawladnimadeena iyo qaran dhiskeena walaalayaal aad iyo aad badan ku mahad celinaya munaasabada sad uga soo qayb qaadateen wada jir iyo walaalnimo ay noo balan ah xukuumadeena iyo dawladeena iyo shacabkeena iyo inta weynaynu isla shaqeyno si walaalnimo ah aad iyo aad baan idin salaamayaa halkaas aynu ka sii wadaynaa waxaana insha Allah rajeenaya munaasabadeeda inaan halkaa idin kala qayb galo iyadoo inta ka sii qurux badan wassalaamu calaykum.